inaad dadka baryinna waa waajib oo aad xoogsato ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartaana waa wax loo baahan yahay haddii aynu idhaahno ummadoo dhami ha wardido wardiga ha qaadato ha wardido haye oo dadku markaa yuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handase la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxaasoo dhami waa adduunka faanigaabay ku tacalluqaan haye natiijadu maxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa ummad dhammaanteed foqoro ah dhammaanteed jaahilka aan nolosha adduun say u maamusho dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin dadka ku dul nool parasites baa soo baxaya waxaan uga jeedaa dariskan salaadu waa waajib jamaaca inaad ku gudataa baana fiican oo aad jamaacaadka xaadirto inaad dadka baryinna waa waajib oo aad xoogsato ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartaana waa wax loo baahan yahay haddii aynu idhaahno ummadoo dhami ha wardido wardiga ha qaadato ha wardido haye cidina yay xoogsigan inta ugu yara lagu noolaan karo un markaad soo qabato fadhiiso oo dadku markaa yuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handase la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxaasoo dhami waa adduunka faanigaabay ku tacalluqaan haye natiijadu maxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa ummad dhammaanteed foqoro ah dhammaanteed jaahilka aan nolosha adduun say u maamusho dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin يعني وعالة على الناس dadka ku dul nool parasites baa soo baxaya dad bashariyada kale ku dul nool waxa loo baahan yahay wuxuu weeyaan wa'idu lahum istata'tum min quwwati wa min ribat al-khayl turhibuna biha adu wallahi wa aduwakum alayhi وكيف تعد haddaad jahl iyo baqaydin wada hayo كيف تعد haddaad jahl iyo faqri ku wada hayo saasha isweydiinta le waxa weeyaan marka nooca hadii loo noolaado xanuunka faafayo cidda weyse loo heli maayo jahliga faafayo cid nolosha horumaraysa la heli maayo noloshoo dhan baa aasmaysa muslimiintii hore waxay caanka ku ahaayeen ee dadkani sida qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal mas'alada u dhigtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kaloo ahaayeen istihlaak dadka ugu yar labada mas'ale ma isla fahmi karaysa waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneera ayuu hadduu hilib yaroo shiilan cunayso odhan jiray armaakani kii aakhire ku weydaariya idan may ahayn wax la'aan ee waxay iyadoo gacantooda ku jirtaanay qiimo badan u samaynaynin innaga laba mashkila meesha taalla dad badh yidhi aakhiraan ku soconnaa adduunkaba uma baahnin dabeetana un gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tidhi adduunyaan raadacaynaynaa dabeetana adduunkaanu iska bidhbidhsanaynaa meelaha duulduuloo kolba siyaaxad tag iyo daar yaroo cagaaran iyo intaa noloshaba intaa moodo aakhira ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay ahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan lee muntajiin ah markay noqoto conceptionna waxay ahaayeen dadka ugu yar wahada huwa zuhd la sheegayaana marka zuhdiga xaqiiqigiina waa kaa culamaa ilxadiid rag ka mid ah oo waaweyn oo salafkiyaba waxay odhan jireen nin ka midaba wuxuu yidhi ardadiisi isagoo la dardaarmaya waryaadheen anigu walaalahay baan ku kor noolo wax la cunaa buu yidhi idinka waxaan idinkula talinaya inay xoogsataan buu leeyay intaa yartiinna xoola dhaqda waa nin muxadisiinta waaweyn ee la yaqaano ka mid ah muxadisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata amase xadiidka ku xoogsada muxadisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin deetana waxay odhan jireen idiin sheegi mayna xadiidka idinka waxna siiya mooyaane marka lacag la siiyo ayayna xadiidka sheegi jireen marka ahlulxadiidka markay ka warramayaan raggay maagaan bay ku jiraan oo yidhahdaan xadiidkoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto walaa professor baanahay walaa ustaad baanahay walaa waxa kan baanahay malihi ma bannaana laakiin waxa aan tilmaamayaa iyaga aragtidooda waxay ahayd inuu wixiisana xoogsado cidina aanay u manno sheegan markaa laa dawlad walaa shicib walaa qofna aanu u manno sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheego haddana isagoo inuu dadka u manno sheegto cilmigiisa uu aakhira iyo ajar ku helo mu'minka xaqa ahi markaa waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sarreeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo haddaa see la odhanaya xoolaha badana la shaqaynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynoo dhisaynu laanay waayo waxaynu soo saarrayba waynu cunno ama muntajiin baynan ahayn ama mustahlikiin baynu nahay labadubana waa waxaan fiicnayn muntij noqo mustahlikna ha noqonin wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso u horumariso westernkaynu maanta joogna carruurteenna islamic school baynu u laanay waxaynu ugu weynay ama waxbaynan soo saarin oo caydhaynugu fillaatay ama wixii aynu soo saarraynu liqnayo waa la boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganay marka
waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahayay waxaan leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ee masaajidka dhisay saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nabigu u dirayay yaa lahaa yuhuud baa lahayd yuhuuddaa la booba nolosha la xoogsada la lahaa meeshuu lahaa cabdiraxmaan ibnu cawf dulluuna cala suuq waa suuq lyahuud suuqi banu qaynuqaac baa la geeyey meel kale lama geynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay cinwaankii la ii dhiibay wuxuu ahaa calaaqati dunya bilaakhira adduunku aakhira xidhiidhku la leeyahay waa maxay xidhiidhku la leeyahay waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa dariiqii aakhira loo marayay hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado war xoogsiga xalaasha ahi cibaadadu ka mid yihi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi kafaafka aad noloshaada adigu daberi kartaa cibaadaday ka mid tahay baryadoo aad iska dayso aad sooshiyaal wax weydiisanay cibaadaday ka mid tahay inaad isku fillataa cibaadaday ka mid tahay qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahay qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahay in marka tusaale lasoo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatay caydha ku nooli diin yariday ka mid tahay bal dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diin yari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxa aan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga geli gacantaada goormuu gelaya goorta aanu wasni badan cunistiisuba kula lahayn marka isaga kaa mid tahay inaad faasuuliyad cunto iyo inaad biiso cunto inaad garow cunto iyo inaad maxay inaad digir cuntaa digirta marka la cuno iyo biisada marka la cuno jidhku intuu u baahan yahay labadaba uu ka helaa calooshu ma kala taqaano waxa lagu riday inay biiso tahay iyo inay digir tahay calooshu waxay taqaanaa in vitamins ay hesho proteins inay hesho fats wixii ay u baahnayd inay hesho waxaasun baanay ka dhuuqdaa waxa laysi dheeriya waa maxay waa dhadhanka afka carabkaa kala sheegay inay biiso tahay iyo inay digirtay intan carabka saxaabadii way ka adkaysteen laakiin caloosha waxay u ogolaadeen waxay u baahnayd inay hesho waxay u baahnayd inay hesho protein iyo vitamins waxay u baahnayd waxay aqbaleen inay noloshan bini aadamka ay mas'uuliyaddeeda iyagu qaadaan oo ah qiyaadati albashariya bini aadamka inay hogaamiyaan oo xaqa ku hogaamiyaan qof qaawani soomaalidu waxay ku maamaadaan laba qaawani isma qaada bay yidhahdaan qof qaawani bashar kalena ma hogaamin kara adaaba qaawani waxaad u baahan tahay si aad basharka u hogaamin karto inaad noqon karto moodhalkii lagu dayanayay islaamku wuxuu ina farayaa xooluhu inaanay qalbiga inaga degin inay gacanta inaga degaan islaamku inama farayo faramadhnaada oo qaawanaada dhammaantiin laynama farayo laakiin waxaa layna farayaa xooluhu gacantiina ha ku jiraan ilaahayna ku adeeco wixii laydin yidhi ku bixiya markaad soo xoogsanaysaan xalaal ku keena markaad bixinaysaanna xalaal ku bixiya islaamku wuxuu ina farayaa adduun iyo aakhiro kala soocani ma jirto ee waa shay qura ee adduunkana ku nooshiin intaad joogtaan dad muntajiin ahaada islaamku wuxuu ina farayaa noloshoo dhami waa cibaado qul inna salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirt wa ana awwala almuslimiin idan ikhwatii fi lcaqiida darisku wuxuu ku kooban yahay markaa aragtida suufiyada ma qabnee ah adduunka ka tago masaajidka galaqbes aragtida xoogsiga ah ee ah iska xoogsi taga rag waa raggii xoogsadana ma qabno xataa ma qabno aragtida odhanaysa saacadna soo cibaadayso saacadna xoogso ee waxaanu qabnaa aragti odhanaysa saacadda xoogsigana cibaado ka dhig saacadda masaajidkana cibaado ka dhig noloshaadoo dhami cibaado ha noqoto noloshaadoo dhan ilaahay ku ateec subxaana wa tacaala adduunkaagu ha noqdo beertaad aakhiro u fadhanaysay meeshaad rabtay inaad aakhiro u beerato adduunkaagu ha ahaado hadduu yahay mid cilmiya hadduu yahay mid maadiya hadduu yahay mid lacageed sidaa awgeed baa waxaan ku tilmaamaynaa saxaabadan waaweyn aan leeyahay nin waliba milyanuu ka dhintay maxaa milyanadooda u maqli weydeen waxa u maqli weydeen taariikhdooda milyankan waxa lagu faaniyo waxa buuran ka ahayd waxa lagu faanaa waxay ahayd in ilaahay la adeeco waxa laga yaabaa intiina haddaan idin weydiiyo Zubayr milyaneer maaha qof garanaya inaanu jirin laakiin marka la yidhaha casharatul mubashiriin ma ku jiray ha سعد بن أبو وقاص مليونير ما هو قف قرن يا مجرى لكن هذا 10 المبشرين ما كنت جري والله قرن يا عبد الرحمن بن عثمان رجع كان إن 10 المبشرين كنت جرين با معنا صمين إسا إن اللي عك هيستين معنا صمين مش كودي فقير كهاي كودي اللي عك هيستي وحي كلام بدنايان با إن أكرمكم عند الله أتقاكم سيد ردد الدون ولا هي الدون كان قيمها أهين آخرة قيمها هيدي يوحو آخرة كجويو marka waxaan idin leeyahay adduun haydi soo galo laakiin yuu noqonin adduunku mawaasiintu yay qaldamin hadi waahida mawaasiintu yay qaldamin adduunkuna ha noqdo dariiq aakhira lagu gaaro wallahu a'lamu billahi tawfiiq wa salaamu alaykum